jaamacadda bariga Afrika faraceeda magaalada Ceergabo ayaa soo gabagabeeyay tababar 4 maalmood jaamacaddaasi ka socday kaasi oo ku saabsan maadooyinka hogaaminta wanaagsan iyo sida fagaaraha looga hadlo isla markaasina waxa tababarkani bixinayay tababare nololeed Maxamed Cumar Cismaan oo jaamacaddu ka soo casuntay magaalada Boorama gudoomiyaha jaamacadda bariga Afrika faraceeda magaalada Ceergabo Cali Soore oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay ujeedada ay kale yihiin in ardaydu hesho tababaro iyo aqoon-yahano horle waxay tahay jaamacadda 2011 baa la aasaasay runtii ardaydii ka soo baxday macadka Ibn Kathir xilligaas ilaa waqtigan aynu joogno waxay hadda maraysaa 4 kuliyadood baa dhigta jaamacaddu waxay leedahay hadda muddo 2 sano baa aasaasnaa center ama training center iyo xarun tababareed oo runtii aan ugu talagalnay in ay ku caawinto bulshada kale laakiin waxa aanu ku dadaalaynaa oo aanu rabnaa inaan culays ka saaraa waxay tahay in ardayda joogta la tayeeyo aqoon-yahan uu ka soo baxo in meesha shahaado kaliya ka qaadano maaha laakiin waxa la rabaa ardayga halka jaamacadda bariga Afrika ee faraceeda Ceergabo wax ka dhiganaya inuu noqdo arday aqoon-yahana aan isugu nimi inaan soo gabagabayno tababarkii jaamacadda bariga Afrika xarunteeda Ceergabo ee gobolka Sanaag afarta cisha kaasoo uu bixinayay motivational speaker ama tababare nololeed Maxamed Cumar Cismaan qaar ka mid ah ardayda tababarkani dhamaysatay ayaa iyaguna halkaasi ka soo jeediyay waxyaalihii ay ka barteen tababarkani Maxamed Cumar waxaan leenahay jazakallahu khayr marka hore inta aad noo soo martay in aad nasiiso labada kooras iyo wixii kale ee aad nala shargarisay waa aragnimadaada waayo wax laga yaabaa koorska quraan ay ku koobnayn qaar ka mid ah macallimiinta jaamacadda bariga Afrika ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay ardaygu markuu heer jaamacadeed yahay waxa weeye inuu helo lectures caalamiya waxa weeye waxay soo qaada hankiisa aqooneed iyo hilinkiisa wadada uu marayo aqoontiisa inuu ay noqoto muddooyinka koorsada intensive courses baa la yiraahdaa intensive courseska muddada uu dhiganayo cilmi badan buu ka qaataa waxyaabo laga sheekeeyo afkabnimada dhibaatada ay leedahay horta macallin iyo hogaamiye iyo madaxweyne midna ma noqon kartid hadana dadka la hadli karayn ku soo dhaw gobolka mar labaad iyo mar saddexaad ba waan ku soo dhaweynaynaa abaal badan baad nagu leedahay oo intan qof hadaad si walaaqday maskaxdoodii awoodahoodii abaal badan baad nagu leedahay sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay tababare nololeed Maxamed Cumar Cismaan runtii waxa aan jeclaan lahaa inaan hal yar oo qodob ka idhaahdo wixii aan baranay muddada kooban aan ku baranay tababarkii koobnaa aynu ku qaadanay hogaaminta iyo dadka hor hadalku iyo koorasyada ama tababarada aynigiisu maxay ka bedeli karaan waxbarashadeena runtii waxa ay waxbarashadeena tooska ah ee iskuulada iyo dugsiyada iyo jaamacaduhu inoo shaqayn mayso oo nolosha caadiga waxba inooga qaban mayso haddii aynaan haysan xirfadihii iyo garashadii iyada jilcin lahayd ee fududayn lahayd agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay ee wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Cali Axmed Cabdiraxmaan ayaa halkaasi hadal ka soo jeediyay hadalka kiisa yar ee wax ku tusaaleeya ayaa faa'iido leh professorku wuxuu talent u leeyahay inuu dadka si yar maskaxiisa wax ugu ridi karo public speaking kale sheegayna waa arrin qaali ah intiina hadeerto jaamiciyiinta ee jaamacaddan ku jira kuwa kalena aan rajaynayna ka sii bixi doonaan xagga gudbintu waa arrin qaali ah courseska kala duwan aad qaadanaysaan ayaa tacliintii horumarinaya gabagabadiina ardayda tababarkan 4 cisho soconayay dhamaysatay ayaa shahaadooyin la guddoonsiiyay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishinka caalamiga Star TV magaalada Ceergabo